aan kula hadlaya daawade dagaal culus ayaa waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Boosaaso. waxa uu dagaalkani u dhaxeeyaa ciidanka BSF ee ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland ee Siciid Dani ka amar qaata. khasaare ayaa jira oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. xogihii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa daawade. ka hor muuqaalkani like saar oo commentiga aragtida nagula wadaag siina share garee si saaxiibo fara badan muuqaalkani u gaaro oo aan xogtan ka wadahayn. duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xilligan aan kula hadlayo waxaa ka taagan xiisad colaadeed iyo dagaal qaraar oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. dagaalkani ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidanka BSF-ta oo si gaar ah u hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya amarna laga siiyo Muqdisho iyo ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland ee Dani hoos yimaada. haddaba ciidamadani ayaa horeyba waxa uu ugu dhaxeeyay khilaaf balaaran iyadoo laga cabsi qabo in dagaal qaraar uu dhinacyadani uu dhex maro. colaadan ayaa salka ku haysay kadib markii in ka badan 9 tikniko oo gawaari ah oo ay wateen ciidanka BSF-ta ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayeen in ay xoog ku maraan mid ka mid ah kontaroolada looga baxo magaalada Boosaaso. waxaa hor istaagay ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo amar ku siiyay in aysan dhaqaaqi karin. dhinacyadani ayaa markaa waxa uu ka bilowday khilaaf sii xoogeystay iyadoo keentay in maalmo ay is hor fadhiyeen. gelinkii hore ee maanta gebi ahaanba waxaa go'day wadadii isku xiraysay deegaanka Laag iyo magaalada Boosaaso kuwaasi oo ay inta badan maraan gawaarida shacabka isla markaana ay ku safraan markaasi dadyo fara badan. xiisada oo sii korortay ayaa keentay in gebi ahaanba gelinkii hore ee maanta ay markaasi wadadaasi xiranto. ugu dambeyntiina daqiiqado ka hor dagaal qaraar ayaa dhinacyadani ka dhex bilowday sida ay inoo warinayaan ila lagu kalsoon yahay iyo goob joogayaal. dagaalkani dhinacyada dhexmaraya waxaa la isku adeegsanayaa hub culus iyadoo aan waxba la isku reebanaynin. waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanan si cad u tilmaami karin inta dhimatay iyo inta dhaawacantay maadaama dagaalku uu yahay mid qaraar xilligan uu socdo. ma jirto cid si gaar ah uga hadashay, mana jirto cid soo faragelisay dagaalkani. mar kale daawade muuqaalkani like saar oo share garee soona follow garee boggeena si aad u hesho xogaha ugu dambeeya ee arrimaha gudaha iyo waxa ka soo kordha dagaalkani.